السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا ذي السلام عليكم ميل كستو أدونك جوكتان. أنت وحنا وضع محاضرة آد ونكسن وآد وقيمة بدن وعربنا ما أنت إنا وضع دقيسن وأن كوانا قادن وأن كفايديسن وأنت أنا أدونك جوكنا وأن ولي فرصة هيسن انت انا المقال كوجد قالنا waxaan ka codsanay inaad channelka subscribe saarto muuqaalkana aad like saarto ma sanid markana ku soo dhawaada muuqaalkii oo faahfaahsan sidaan ognahay qof walba qiyaamihiisa waxa uu dhacayaa maalinta uu asaga dhinto qof walba qiyaamihiisa waxa uu dhacayaa maalinta uu asaga dhinto marka walaalayaal meeshaas waxay u baahan tahay diyaar garow aad u fara badan meeshaas waxay u baahan tahay in aad looga diyaar garow aakhiraduna way bilaabantahay iyadoo dhamaad ma leh hadaad maqashay hebel u dhintay noloshii adduunyada ayaa ka dhamaatay aakhiradii weyni ka badnayd baan u bilaabantay sax walaal adduunyada sidaan ognahay way iska gaaban tahay wax walba oo aad shaqayso oo wax aad ka tagayso laakiin waxa wanaagsan oo aad horumarsato ayaa aakhira wax weyn ku taray walaal adduunyadan yar aan isku mashquulin aakhirada weyn ee dambe aan ka fikirno hebel baago aynagu markaan maqalo markaa waxa la isweydiiyaa dadii adduunyo muxuu ka tagay caalamka samada dadka khalqiga ku nool ee malaa'igtuna waxay isweydiiyaan hebel maxaa ka soo horeeyay maanta aad adiga isku mashquulinaysa oo salaada ay kugu dhaafaysa marka uu horeeyo ay nafta ka baxdo dhammaan waxay ku bixinayaan magac kale oo ah meyd magacaad adduunka ku lahayd cid kugu yeeraysa malaha qof walba nooc walba si walba sharaf u lahayd waxaa lagugu hilmaamayaa muddo ka yar bil 3 maalin 2 maalin ayaa laga yaabaa in lagu xasuusto marka hadiiba adduunyo ay sidaas tahay waxa wax laga xumaadaa in la isku daaliyo oo iyadoo laga dabo ordo salaada ay kugu dhaafto dhamaan khayrka aad iyadoo ugu tagto walaal waqtiga waa uu kooban yahay aan ka faa'iideysano insha Allah inagu markiiba waxaan isweydiinanaa markaan maqalno hebel baa go'ay muxuu ka tagay laakiin malaa'igtu waxay isweydiinayaan maxaa ka soo horeeyay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waa kay noo sheegay lahaa maydka marka la qaadayo uu nabigu degta la saarto ee nacashka la saaro nafta la sii wada haday ahayd naf wanaagsan oo ilaahay taqaana oo adduunka dusheeda ilaahay amarkiisa qaadatay haday ahaydna waxay leedahay anu walli baanay horay ka yeelada qabrigayga horay iyo dhiga haday nafta la sii wada ay ahayd naf baan oo xun oo mujrimada oo dambi badan oo shar badan haday ahaydna waxay leedahay tan way khasartay halkay baad ku wadaan hadalka naftaasi ay leedahay cid kasta ayaa maqlaysa rasuulku yiri ilaa jinkii isagu baanan maqlayn haday labad ka waran walaal maalintaas haddii ay naftaada noqoto mid dhahaysa naftaan way khasartay ka waran walaal meel aan adduunyada qasaaraheeda waa laga soo kaban karaa oo adduunyada maanta si walba u khasarto dib waad u soo kaban kartaa laakiin mar haday nafta ka baxdo adigoo khasaaray ogow inay soo laabasho dambe aynan lahayn waqtiga maanta aad haysato hal daqiiqo ba ha ahaato faa'iido aad u weyn ay leedahay hal daqiiqo faa'iido aad u weyn ay leedahay Allah maqashin lahana dadku ismay aasayna way argagax lahaayeen buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ma tawaadu bari wa akhir wayaan maalin buu nabigu arkay saxaabadiisa iyagoo meel fadhiyo oo sheekaysanaya lana saxaabadu bashar bay haayeen Abdullah ibn Umar ibn Khattab baa lagu yiri asxaabta nabi Muhammad bay qosli jireen buu yiri laakiin iimaanka qalbigooda ku jira ayaa buuraha ka weynaa malaa'ig bay hayna bashar bay haayeen sidayna go'aan u shaqaysanayeen sidayna ku reerayo badan u leenahay si ka badan bay u lahaayeen laakiin qulubtooda waxaa ku weyneed ilaahay baa ku weynaa geerida waxay u baahan tahay diyaar garow aad u weyn geerida walaal hawl bay rataa geerida horteed waxa la rabaa maanta waqtiga hadda aad joogto hal daqiiqa hal saac hal maalin waxa ku dhiman adiga ma sheegi kartid laakiin hadii hal saac oo cimrigaada kaaga haray waxaad haysataa wali fursad aad ku sameyn karto wax wanaagsan ilaahay waa ghafuurur rahiim isaga ku dambi dhaafay walaal adiga leeyahay toobada Allah subhanahu wa ta'ala ka bari inuu ku dambi dhaafo insha Allah subhanahu wa ta'ala ku dambi dhaafi doonaa